waxaa maanta kulan ka dhacay Muad Center ee magaalada Birmingham kulankaas oo u dhaxeeyay booliska iyo Soomaalida ku dhaqan magaalada Birmingham kulankaas ayaa wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida sida in marka ay riboorada ka dhoofayaan ay riboorada laga soo dhaxsaaro dadka oo halkaas si aad loogu baaro in dhalinyarada magaalada ku nool dariiqa boolisku ku istaajiyo kadibna baaro waxa kulankan ka soo qayb galay runtii dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin ka socda West Midlands Police ee magaaladan qaar kuwa ugu sareeya sida Mr. Anil Patani iyo Sergeant Manku oo ah ragga ugu sarsareeya ee booliiskan magaalada Birmingham kulankan oo runtii aad iyo aad waxyaalo dadka saameeya looga hadlay ayaa dadku waxay su'aalo weydiiyeen booliiska ku saabsan dhibaatadan inay iyaga ku kooban tahay iyo inay dadka oo dhan dhibaatadan la qabaan. The important thing is that not only does the police force itself waxaa muhiim ah in aad ogaataan in boolisku uu mar walba diyaar idin leeyahay in ay idin kala hadlaan waxyaabaha idin khuseeya iyo waliba haddii ay jiraan ashtakooyin ku saabsan wax waliba oo khuseeya siyaasadda dawladda iyo arrimaha gudaha intaba si aan ugu gudbino cabashooyinkiina dawladda annagoo idin mathilayna. The important thing is that we need to ensure that in the same as I came here waxaa kaloo muhiim ah in aad ogaataan haddii aynu ku noolnahay wadankan oo aan u soo aadnay inuu yahay wadan leh dimuqraadiyad laguna ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo xorriyadda intaba waa inaan muujinaa hawlkarnimo iyo ka qayb qaadasho wanaagsan. that reason by making a positive contribution to it. I want to know today waxaanu maanta doonaynaa inaanu ogaano waxa aanu idin qaban karro waxaan kaloo doonaynaa inaanu ogaano maxaad ku caawin kartaan booliiska si ay idin caawiyaan ayaguna waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in iskaashigayaga ay ina gaarsiin karto inaan idin qabanno hawlo aad u wanaagsan. xafladan muhiimadda laga lahaa waa la sheegay waxa weeye in inaguna dhibka aynu qabno aynu u gudbino booliiska waxa jira dhalinyaradeenni waa ogtihiin stop and search baa jira waxa jira airportka marka la imaanayo maxaan ku raadin dadka Soomaalida ah la qabto marka waxaanu garanay inaanu booliiska Soomaalidu ay u sheegto problemska ka haysta meesha tan booliisku ay u sheegaan dhalinyarada Soomaaliyeed problemska ay ku hayaan magaalada marka in la wada hadlo wax xal ah oo meel la isla dhigo markaas xal la sameeyo meel la isla dhigo. Yusuf Ahmed Mahdi ETN Television Birmingham.